macadka alqime ee barashada culuumta islaamka iyo xifdiga qur-aanka kariimka ayaa xaflad u qabtay arday dhammaysatay qur-aanka kariimka iyo shareecada islaamka waxaana ka soo qayb galay culimmada waaweyn ee dalka waxaana hadalladoodii ka mid ahaa الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون aniga halkan kelmad badan ka oran maayo oo waa la iga dambeeyayo hadalku inuu waqtiga ila qaato ma doonayo horta wuxuu maan dareensiin lahayo aynu wada dareensanahay quraanka kariimka ah sidaan taariikhda ku hayo 30 sanadood ka hor Hargeysa uu ku dayacanaa ama diintuba way ku dayacanayd oo waatii loo oran jiray macallin dayaana meel hoose ayaa lagaga jiray xisaabta kaga jirtay waxbarashada iyo qiimaha adduunkaba ilaahay xilli sideetanaadkii ama sideetanaadka aakhirkiisii ayaa quraanku uu sare u kac sameeyay oo runtii boorka laga jafay magaciisa macahad alqime ayaa la yiraahdaa kulli wuxuu furan yahay marka sanadkii saddexaad uu ku jiraa 2019 bishii 7 ayaa la furay marka wuxuu ka kooban yahay laba qaybood qaybi waa xifdiga quraanka qaybina waxa weeyaan waa cilmiga weeyaan shareecada ilaahayna ugu mahadnaqayna ubaxa yar wiilal iyo gabdhaba leh ishu ay ku qabowsanayso quraanka ilaahay iyo cilmigii sharciga ha baranaya waynu hambalyeynayna waana u ducaynaynaa waana ku faraxsana dadku wax badan bay maanta baranayaan oo aynu ogsoonahay dugsiyada iyo jaamacaduhu aad bay u badan yihiin laakiin inta cilmigan sharciga u heelan ee u howlgalaysa ee ku dadaalaysa ma badna ummaduna waxay u baahan tahay inay culimo u soo baxdo culimadaasoo rag iyo dumarba leh oo rag kaliya aan cilmiga marti looga ahayn diiniga ah wiilal iyo gabdhaba waxaynu u baahannahay cilmiga sharciga cid barata oo quraanka kariimka ana si sugan oo xifdi leh oo fiican u taqaana جزاكم الله خيرا واسداس علماء نoo sheegeen walaalkan Sheekh Ibraahim horreysiyay dacwada iskaamilaysa tacliimteedii dacwadeedii mas'uuliyadeedii ilaahayna wada waafajiyo ardayda waalidiintana uun kelmadaan oran la waxay tahay ninba wuxuu yiri in hadduu qambool iyo tabcado qoole iyo jeerin ilingeed qumani uma baxo iyo qariya saytuun ilmahan quraanka yalla barin qowlkii nabigeena ama aan qalooc iyo wanaag looba kala qeexin waxa loo qabsanayaa hadduu qariyo buur jeero dafar badan oo waalidiin way cabanayaan badan oo kale aniga meesha iga muuqda ma jirto haweeyaan waxba inoo bilaabmay alxamdulillah khayr baa inoo bilaabmay khayrkaas waa bilow wax socda laakiin qofka hadduu socdo oo safarku u bilaabmo xaggiisa dambe ma eego oo ma yidhaahdo intaasaan soo socday laakiin wuxuu yidhaahdaa xagga horuu buu eegaa wuxuu safarkii maxaa ii hadhay ama goormaan maaragtay meeshii aan ku tala gashanaa gaadhaya marka waxaan leenahay khayr baa inoo bilaabmay dal ahaan dad ahaan dowlad ahaan ummad ahaan islaamnimo ahaan khayr baa inoo bilaabmay laakiin masiiradii iyo safarkii waa socdaa weliba dhadhowa waxaan leenahay yaan la soo dhawaysanin ee masiirada ha lagu socdo mahadnaqana ha la badiyo dadaalkana ha la badiyo meel fogna ha la tiigsado ilaahay baa mahadle subxaana wa tacaala ina soo waafajiyey kulanka khayrka badan ee isugu nimid dhammaanteed culimada iyo waalidiinta iyo martida meel walba isaga timi caalamka oo dhan insha Allah bismillaahi kariim waxaan ku salaamaynaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
insha allah bidnillaahi kariim anigu hadal badan odhan maayo hadalkii waa laynoo dhameeyey waa laynala dardaarmay culimmadii baa inala hadashay qaarna way inoo dhiman yihiin oo way inoo soo gebagabaynayaan marka insha allah bidnillaahi kariim kelmadda waalidka dee sheekh mahad oo imaka halkan ka dhaqaaqay ayaa inoo dhammaystiray insha allah bidnillaahi kariim haddaynu waalidiintii xaafadda nahay ama meelaha kaleba ka imanayay maxadka ku tacalluqay iyo madrasadda insha allah bidnillaahi kariim dardaarankaa wanaagsan ee laynoo jeediyey hadday tahay marka la imanayo maxadka iyo sida ilmaha looga warhaynayo iyo sida maaragtay macallimiinta looga warhaynayo iyo sidaynu ducada ugu kaabi lahaynba insha allah bidnillaahi kariim inaynu la garab taagnaano inaynu maaragtay maxadkeenna iyo macallimiinteenna iyo ardaydeenaba aynu ka warhayno allah inoo fududaydiyo ilaahay baa subxaanahu wa tacaala mahad leh ilaaha subxaanahu wa tacaala isugu keenay xafladan aad iyo aad u qiimaha badan leh ilaaha subxaanahu wa tacaala indhaheenna tusiyey ubaxa ay ishu ku qabowsanayso ee maaragtay looga soo bilaabay qur-aankii kariimka ahaa ee dhammeeyey ee maxadka u soo gudbay ee maaragtay jaamacadda u sii socda waa wax ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu mahadnaqaa waxaan leenahay ardayda maxadka dhiganaysa inaa hore ugu sii socotaan ilaa jaamacaddii ilaa maaragtay takhasuskeedii ilaa khuruujkii oo sannada ah ku afxidhaan inaa hore ugu sii socotaan baa laydinka doonaya manhajka u diyaarsani ardayda waa inay qur-aankii dhammeeyaan ama qur-aankii markay 15 juz soo gaadhaan maxadkii iyo maaragtay 4 sano qur-aanka ay isku dhammeeyaan 4 sano ee jaamacadda ay dhammaystaan sanadka u dambeeyana ay maaragtay takhasuskii qaataan bacda takhasuska markay qaataan inay sanad khuruuj bixaan oo diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala ay ka shaqeeyaan oo dad cilmigii iyo camalkiiba kulmiyey in la helo talayinku wadaa waa taa tawaalidka lala doonayaana waa taa Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa ugu dambeyntii waxa shahaadooyin la guddoonsiiyey ardaydii dhamaysatay quraanka iyo shariicada islaamka